بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا وناكسن إدنا حانتين بداوضيال waxaad ku soo dhawaataan war wixii daafaca caalamka naga soo gaaray oo aad kala socotaan channelka Gaxliska wararka qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo ansixiyay sharciga batroolka dalka kadib markii labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ay dhameystireen hanaankii sharcigaasi kaga aadanaa dhameystirkiisa aqalka sare oo ansixiyay sharciga doorashooyinka qaranka heer federaal wasiirka amniga Jubbaland oo markii ugu horeysay ka hadlay xarigii ay dawladda Soomaaliya u geysatay Kenya oo ku dhawaaqday inay soo daadgureen doonto ardaydeeda ku xaniban magaalada Wuhan shacab ku nool tuulo lagu magacaabo Wayaama Jibriil oo ka tirsan Lagdheera ismaamulka Gaarisa oo sheegay inaysan haysan goobo caafimaad waxbarasho iyo biyo ay cabaan taasoo sababi karta dhibaatooyin dhanka bini'aadanimada iyo tirada dadka u dhintay caabuqa corona oo sii kordhaysa intaasi waxay ahaayeen qodobada warkayaga ugu door karoon haatan u diyaar garoowa kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan soo laabasho wanaagsan aragti doonaya inuu idin leenahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa saxiixay sharciga batroolka dalka kadib markii labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ay soo dhameystireen hanaankii sharciga kaga aadanaa dhameystirkiisa madaxweynaha ayaa tilmaamay muhiimadda uu shacabka iyo dawladda Soomaaliya u leeyahay sharcigan oo hagaya xuquuqda muwaadiniinta ay leeyihiin iyagoo ka faa'iideysanaya kheyraadka ceegaga dhulka Soomaaliya isagoo xidaab u noqon doona kana ilaalin doona faqriga damaca shisheeye iyo musuqmaasuqa sidoo kale meermarinta sharciga batroolka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxa ay maalgashiyaasha caalamka u muujinayaan sida ay uga go'an tahay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed kamar dhalinta hiigsiga ku aadan xasiloonida dalka iyo inay si wadajir ah u guntadaan barwaaqada ceegagta gudaha Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa guddoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo golaha xukuumadda xildhibaanada iyo dhammaan qobarada Soomaaliyeed ee qaybta ka ahaa u mahadceliyay dadaalka ay geliyeen sharcigan dhaxalgalka u reebaya bulshada Soomaaliyeed sharciga batroolka ee uu meelmariyay madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku saleysan sharciyada batroolka iyo macdanta dalka dastuurka iyo heshiiska la kaashanaya maamulka iyo wadaaga kheyraadka dabiiciga ee lagu saxiixay magaalada Baydhabo qaar ka mid ah dawlad goboleedyada dalka ayaa horey u diiday sharcigan iyagoona ku tilmaamay inuu horseedayo isqabqabsi iyo dagaal sokeeye dhanka kale labadii isbuuc ee la soo dhaafay dawladda Soomaaliya ayaa sheegaysay inay dadaal ugu jirto sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan kaasoo ay sheegtay inuu ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka dad badan waxay su'aalo iska weydiinayeen sida ay ugu dhacday ama ugu suura gashay Cabdirashiid Janan inuu ka baxsado faraha dawladda Federaalka ee Soomaaliya Janan oo aan warbaahinta la hadlin tan iyo markii uu ka tagay magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horeysay la hadlay warbaahinta ugana waramay qaabkii ay ugu suura gashay inuu ka fakado xabsi lagu ilaalinayo sida uu horay sarkaal ka tirsan ciidamada asluubta Soomaaliya ugu cadeeyay aniga xabsi la ima geen markii garoonka diyaaradaha la iga qabtay waxa ay qabtay niman boolis oo labisan iyo niman dharcad ah oo isla socday mid kamid ah dharcadda ayaa igu amray inaan ciidamada raaco ayuu yiri wasiir Janno oo warbaahinta la hadlayay isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in xaafada caadi ah lagu hayay intii uu ku jiray gacanta dawladda Federaalka ee Soomaaliya markii la qabtay kadib waxa la igeeyay xaafad aad u fog oo markii dambe aan gadaal ka ogaaday inay ahayd degmada Holiwa ee magaalada Muqdisho muddadii 5 bilood ahayd ee la hayay maalinba waxa la igeynay guri xaafad ka tirsan ilaa ugu dambeyntii la keenay guri ku yaala xaafada Shibis halkaas oo aan muddo 7 cisho ku sugnaa Janan ayaa ka hadlay qaabkii loola dhaqmay intii uu ku jiray gacanta dawladda Federaalka ee Soomaaliya aniga iyo nimanka askarta oo dhowr iyo 10 gaarayay ayaa isla joognay xaafada dad shacab ah ay u dhisnaayeen oo ay kireysatay dawladda halka ayaana la igu hayay run ahaantii askarta gacanta igu haysay wax xumaan ah oo ka baxsan amarada la siinayay oo ii geystay ma jirin laakiin waxaa jiray xumaan fara badan oo amaro askartaasi la siiyay oo ahayd inay iyaguna fuliyaan
cabdirashiid janan ayaa dhanka kale faahfaahin ka bixiyey sababihii loo sheegay in loo xiray. markii ugu horeysay waxaa la ii sheegay in sababta la ii xiray ay tahay dalab ku aadan inaan dowladda federaalk Soomaaliya ku wareejiyo ciidamad 1,000 askari oo daraawiishta ah, laakiin ma aqbali karin arrinkaasi, balse aniga waxaan fahansanaa in la ii xiray arrimo ku saabsan doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo, waxaana la igu kaftamiyey in la iga daba keeni doono madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Madoobe, ayuu yiri Janan oo warbaahinta la sii hadlayay. ha yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa horey u beenisay in arrimo siyaasadeed loo xiray cabdirashiid janan, laakiin waxa ay shaacisay in loo haysto eedeymo ku aadan tacdiyo bini'aadanimo oo la sheegay inuu ka geystay gobolka Gado. dowladda Soomaaliya ayaa ka dalbatay dowladda Kenya inay gacanta ku soo dhigto cabdirashiid janan isla markaana ay ku soo wareejiso. sidoo kale waxaa codsaday in janan la soo qabto hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda ee magaceedu la yiraahdo Amnesty International. shacabka ku nool tuulada Wayama Jibril oo ku taala Lagadera ismaamulka Gaarisa ee waqooyi bari Kenya ayaa sheegay in deegaankaasi aanay ka jirin goobo caafimaad, waxbarasho iyo biyo ay cabaan, taasoo sababi karta dhibaatooyin dhanka bini'aadanimada ahi. sidoo kale shacabka ayaa sheegay in madaxda laga soo doorto deegaankaasi aanay waxba u qaban tuulada laga soo doorto, kaliya ay yimaadaan marka ay rabaan inay cod helaan ama doorashada ay dhicayso. meeshan waa meel haddaad sii fiirso nolosheeda aad u adag tahay. wax horumar ah oo loogu talagalay oo xagga dowladda iyo xagga dowladda sare iyo tan hoos dhaxaba ka soo gaara ma jiro. waxaa jirta magaaladu jid ma leh. qof haween hadday foolato marmar waxaa lagu qaadi dameer, kareyta lagu qaadi, habeen buu dhexda la bari. isbitaalka dowladda ay leedahay meesha loogu dhow waa 30 ilaa 25 kilomitir inta u dhaxayso, asagoo weliba hadda dhakhtar quman oo macnaha isla markaaba hawshii wax ka qaban kara laga yaabo in aan ka helno sidii rabay aan wax uga qabto. qof jid la'aantaas hortan haysaa, wax caafimaad la yiraahdo ma leh. qof hadduu xanuunsado waa in la gubaa ama xabaqaar iyo wax la waraabiyaa. haddii kale waa inaad gaari ku leeyso ilmo yar hadday qandho qabato ama malaria qabato, waa inaad gaari aad uga yeertay madoogaasha ama gaars oo ugu yaraan 30,000 ama 20,000 ay kugu baxdaa. dadka aan dooranno annagu markaan kuuraha nalaga rabo un baan naloo imaadaa. wax baan caddayn, wax baan madoobeyn, jid baan idin qoraa, isbitaal baan idin dhisaynaa si noo leeyahay ilaa kuuraha dambe uu soo dhawaado wax lagu soo laabto oo maxaad qabtaan yiraahdo ma laha. dadka hadda meeshan laga door deegaankan anaga kuuraha ugu dhaca waa wax la wada ogyahay oo registeraysan oo national ah. hal qof oo meeshan soo gaaray oo maxaad qabtaan yiri ma jiro. oon hadduu dhaco ilaahay roob noo keenaya, anaga waxay intaanada xaraasnaya baan biyo ku cabnaa. caafimaad sidoo kale, waxbarashada iskuulkaana hal macallin baa jooga oo xagga dowladda ah. ilmihii marka weeyay waa 80 oo kala galaas ah oo kala heer ah oo qaar farta qalinka loo qabto booga aan qori karin. naasir ilaa isar 5 hal macallin haddii uu wax bari karin, nin kastoo maskaxdiisa fiyowna uu garanaya. haddaan macallin aan banaan ka qabsano dadku waa dad iska danyar. macallinkii baahidiisa lama dabooli karo, marmar baa biyo la cabba baa tahay dhib noqon. waxaan ka codsanayaa dowladda si degdeg ah sida ugu sahlan annagoona qasbaynin jid caafimaad macallin. Kenya ayaa ku dhawaaqday inay ardaydeeda ka soo daadgurayn doonto magaalada ay ku xayiran yihiin ee Wuhan ee waddanka Shiinaha, waxaana ay ku buurisay dariskeeda Ethiopia inay joojiso duulimaadyada ay ku tagayaan Shiinaha si ay gacan uga geystaan xakameynta cudurkan sii faafaya. madaxweynaha dalkani Kenya Mudane Uhuru Muigai Kenyatta ayaa sheegay in ardayda ay doonayaan in dib loogu celiyo dalkooda 14 maalmood gudahood, taasoo Kenya ka caawin doonta in ardaydaasi ay badbaadiyaan isla markaana la hubiyo inta aan waddanka la keenin. wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa sheegtay in ku dhawaad 88 arday oo reer Kenya ay ku sugan yihiin Wuhan oo xudun u noqotay cudurkan. dad aad u fara badan oo Kenyan ayaa saaka safaf dheer u galay iridka hore ee xarunta baarlamaanka Kenya, kuwaasoo doonaya inay arkaan meydka madaxweynihii hore ee dalka Kenya Daniel Arap Moi. gawaarida xamuulka qaada ee ciidamada Kenya ayaa ka soo qaaday meydka halka lagu keydiyo meedadka, iyagoo ku siday naxash uu ku duuban yahay calanka Jamhuuriyadda Kenya, waxaana ay u sii galbiyeen dhismaha baarlamaanka waddankaasi. ehelada iyo qaraabada marxuumka ayaa yimi xarunta baarlamaanka
saacadu markay ahayd 9:00 subaxnimo iyaga oo la socday baabuurta adeega dhalinyarada qaranka NYS. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo marwada koowaad ee dalka Margaret Kenyatta ayaa noqday dadkii ugu horeeyay ee arkameedka saacadu markay ahayd 10:15 oo subaxnimo. madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto iyo madaxda kale ayaa waxa ay haysteen 1 saac oo ay ku arki karaan meydka ka hor inta aan loo ogolaanin shacabka isugu yimid afafka hore ee baarlamaanka. inta lagu guda jiro maalmaha Sabtida iyo Axadda ayaa loo ogolaan doonaa dadweynaha inay arkaan meydka madaxweynihii labaad ee dalka laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo ilaa Isniinta ka oo yaali doona xarunta baarlamaanka. maalinta Salaasada ayaa waxa uu wadanka gali doonaa fasax qaran ka hor inta aan Arbacada aas qaran loo sameyn madaxweynihii ugu muddada dheera laga soo bilaabo sanadkii 1978. Daniel Arap Moi ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Nairobi waxaana uu jiray da ahaan 95 sano isagoona lagu wado in lagu aasi doono hoy uu ku leeyahay magaalada Nakuru. halka aad weli nagala socotaana waa janaalkeena Gaxliska wararka oo si toos ah uga dheexanaysaan wararkii ugu dambeeyay caalamka ka dhacay. tirada dhibanayaasha la ildaran xanuunka caabuqa corona ayaa lagu soo waramayaa in maanta oo Sabti ah ay gaartay 722 qof, taasoo ka sara martay dhimashada xanuunkii oo ku dhawaad 20 sano ka hor ka dilaacay Hong Kong. wadarta guud ee dadka uu soo ritay xanuunkan ayaa sii cagacagaynaya maanta 34,546 ruux. maalinimada shalay ayaa waxaa wadanka Shiinaha laga soo warinayay dhimashada dhaqtar 34 jir ah ka oo ahaa dadkii ugu horeeyay oo ka digay xanuunkan dilaaga ah ee coronavirus bishii December ee sanadii aynu ka soo gudubnay, taasoo dhalisay muwaadiniinta wadankaasi in dowladda Shiinaha lagu dhaliilo in ay ka hortagi weydo isla markaana wax ka qaban weydo xanuunkan ayaa sababay in dowlado badan ay xanimaan imaashiyaha wadanka Shiinaha iyagoona muwaadiniintooda uga digay inay u safraan Shiinaha si ay uga fogaadaan khatarta ka taagan wadankaasi. sidoo kale dowlado badan ayaa ku amray muwaadiniintooda inay isaga soo baxaan gudaha dalkaasi. waxaa gebi ahaanba la joojiyay duulimaadyo badan oo aadi jiray wadanka Shiinaha taa oo loo sababeynayo khatarta ka dhalan karta xanuunkan dilaaga ah. dowladda Shiinaha ayaa waxa ay wadaa dadaal dheer oo ay ugu jirto sidii ay ula macaamili lahayd xanuunkan, iyadoo maanta magaalada Wuhan oo ah meesha ugu horeysay uu ka dilaacay xanuunkan laga furay isbitaallo badan oo la doonayo in lagu dabiibo dadka la ildaran xanuunkan. guud ahaan war wixii daafaha caalamka naga soo gaaray oo aad kala socoteen janaalkeena Gaxliska wararka. haatan waa naga inta Axmed Laqaya ayaa la socodsiinay tan intaynu hawada dib ugu kulmi doono. nabadgelyo.